Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta sharafta leh kusoo dhawaada Muqaam channel. Saad u jeedaan waxaan ku suganahay Jomo Kenyatta Airport ee aan kusoo dhaweynayno fanaankeena Xasan Gantaal oo ayadan ku maqnaa dalkeena Soomaaliya magaalada Muqdisho. Marka asxaabay insha Allah isla socod wanaagsan. qofkii helaa qotoon joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan noolaa qofkii helaa qotoon joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan liibankii qayb iyo qoysu heelaa oo eedii qalaafiyo faraxay la daga beri dhoobaan la heediyo qabridaar la daga beri liibankii qayb iyo qoysu heelaa oo quruxdii hargaysiyo qardhawaayo kulalada qabridaar dhexdeediyo faraxay la daga beri waa qaaliluule qalbigeeda yaadhayaa way qiimo badantee kun yaryaa u daawada waa qaaliluule qalbigeeda yaadhayaa way qiimo badantee kun yaryaa u daawada qadaariyo ku yidhaahda qaalanjiyo qowl dabacsan waaligeed yaa abid quweeyo ishmeeyo qadaariyo ku yidhaahda qaalanjiyo qowl dabacsan waaligeed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا مركو هذه مرة بالكم كسر دوينا شوق درا ريمي رويل كعدك سفنك كتير حسن عبد موسى حسن جنتال أو مقالة المرتشة حرمت ذلك هو ينوي واحد من بواسية والتيم كانوا ضمان توصل بحين السود ويان ويل كورا أيان من الميكروفون كودي بيا أسرع أيان وقدم بنت الصعدة بالبقرة وياه أنا وقتها ساكون سوق الله والله يتون كلكم بنتجنا حاس لها ديارة درب بدنا وما حكيت هجنتاي وقت دركت إلهي بمعلو نسوق فنانكيني بدنا باسوس عضو بدنا قاعد قوتي ولوه نوجران أرجع حلنا إن بدنا نسوقني وقدام بين نسوقاري هذا مجال بقى مش كنا welcome to home لأنه أنا أسكت نروح أبورت أنا سيجارة كوكو حسي والله سيجارة أنا وحسي إن بدنا هبني مالنا وسوعني ده تلفونك حوم مكان جوجتان كفعل ساحب أول نبض إنه لا يكسوك عليه سوري هاي عيان قاعد
ayaan la dagacday bal markaana kelmadaada hay ما شاء الله توقفنا إلهي ما حتى إسكاره ولكن حسن سوى جارسيين حسن والكام كسر مجال هذه بالكاج أتكتكتي الحمد لله هذه أدوان وفر حسناي لو أنت نقول تبارك على أنا laga jecel ma laga jecel بالفوز فوز هي baraka soo istaag fanaanka daawada inuu boqorka TikTok horta aad u maadsanyihiin dhammaan dadkan soo dhaweynteeda u imaaday ku maadsanyihiin maadaama ay ugu soo dhaweynayaan airborkii waan khalad hadhaay waa sala jeclaan haa waa dhaca u jeedo haadi intaas waa qabtaa uu noo qurxinayay waxaan halkaan u taagnayn oo maanta dhan ku sugeynay walaalkeen rajan fanaankeenna qaaliga ah kolley ani fanaaniinta kale lama sinadee marka mar walba waxaan leeyahay lejan is lejan waa kana soo dhow magaalada magaalada haye saadaam ninka dhaantada looga haray suldaanka TikTok wiilka maalmahan Xasan Gantaal ku cirinaya dhanka jiimka balaaye yo horta ninkan waaban islaakiin wigi weynaaday wigi dheeraaday ma garanayo haddaan fanaan haddaad noqoto aldhao mikrofoonka qaadatid waad dheeraan waad weynaan marka anigu inaan mikrofoon yar qaataan rabaa horta inuu ninkan saaxiibaan waa saaxiibkay wuu naga yar daqaqamay wuu noo soo laabtay daqaqan ma garanaysiin daqaqan wuu yar meel caasimada soomaaliya noo yar gaaray wuu noo soo laabtay lagamana xiiso gooyay ninkanoo mar walbana saasaa loogu soo dhaweeyaa saasaana mar walba ugu taaganahay garabkiisaano dee soo dhawo baan ku leenahay sidoo kale walaal caddaynaysaa magaalada Nairobi wiilka in looga xiisay bal haye talyaani the one and only marti soo dhaweysay horta hadalka aan uga yiri hormale the one and only promoter from Talyaani Europe meel badan soo maro libaax oo la garanayo inta ka badan saga kulay inta ka badan kulay afjooga lama hadlo Soomaalidu dhada welcome brother soo dhawo Talyaani walaashay aad u maasantahay farxad waxay ah inaan ku soo dhaweeyo walaalkay barna waxa waa wiilka shaqo wadaaga nahay manager-ka wahay Xasan inaan waxa weeyo Jomo Kenyatta inaan taagana maanta Nairobi sharaf weyn iyo ciise karaam iyo walaalkay qaaliya shaqooyin badan oo qurux badan waxa waaye ma sha Allah dalkaaga hadday noqoto dhan walba hadday noqoto asxaabta shacabkaaga waad la soo qaadatay waxaan sugnay insha Allah duleerada waa loodin Europe tour insha Allah duleera Xasan Gantaal insha Allah lagama hadli karo youtuberka weyn magaalada asaga un baan daawanaa marka caajisno bal soo dhawo kelmadaada waxna dheh marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka soo dhaweeyay fanaanka hadal badan ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan dhaho gurigaagii waad imaatay soo dhawow aad u maasantahay gaas aad iyo aad meel lagaa jecel yahay haye bal khadaro Xasan soo dhaweynta kelmadaada ninkan aabbaha ku magacayo horta iga qabtaas horta waxaa sharaf iyo amaanta inaan soo dhaweeyo qof aabbahay ku magaca inkastoo aan ka weyn oo naag weynahay marka laakiin waxaan leeyahay soo dhawo walaalkay Xasan Gantaal sharaf bay ii tahay maanta inaan Jomo Kenyatta ku soo dhaweeyo fanaan anigu si shakhsiyan u taageero oo deheesiisa markaan ma taqaanaa yaa faaraxa aan isku dhacno aan aad u dhageysto aad baan ku soo dhaweynaya walaalka cali soo dhawo Xasan Gantaal ka jeceshahay بسم الله حسن قتال يسيس هذا نقول واجح والله بالله هستي حي هاد إني كذا نجيسني نبي إيش كده لا مرة إنسان أركبه المامي وهستي بقى المام بقى يقول عيبة مرة ولكن معاه محل يسود وجرو جاي لأنه مرة بقى كنت علنا هدي هذا ماني ويا هذا حتى لو بده هبيني ما ضمن نوتي مادي تذكر كوتا يا جنبنا مرة سود وكرامي مضم بقى نوين وشرف له أدي واتهاي dadka maanta waxay sugayeen inaan bal Xasan hal mar mikrofoonka ku wareejiyo oo hadaladiisa iyo heesiisa iyo de adduunka dhan baa isla xiisa soconayo aniga xataa warka si aan uga goynaya ma fahanto markaan ninka arko marka Xasan Gantaal kun iyo coacher ya marka aan way u diidan lahay hadal bahayo wiilka hadal bahayo waxaa leenahay walaalkeen welcome to Nairobi magaalada ka baxday haddana magaalada tagtay marka abara ku istaagneen welcome to Nairobi waa tahay haatan waxaan mikrofoonka idinku dhibayaa saan hore idinku sheegay fanaanka joogiisa iyo codkiisa fanka ku jooga Xasan Cabdi Muuse Xasan Gantaal bal soo dhawow waxa noo keentay aad iyo aad baad maasantahay si wanaagsan iyo xaladaysay amaan badan oo lahayn baafka ka yeelisa sharaf iyo karaamo ayaan u hayaa intiin halkan ii soo istaagtay ay dareensiinaysa inaad tihiin asxaabteedii iga soo horeysay gurigayga ii joogtay anigoo ka imidna gurigayga magaalada Muqdisho salaam baa idinka waday aad bay u wanaagsanayd waxa weeye
reer muqdisho dhan waan salaamaynaa nairobi baan maanta ka salaamaya mid idinma taabanay magaciina laakiin magacyadiina qalbigayga ku qoran yihiin boqolkiiba boqol aad baad mahadsantihiin dhammaantiin waxaa weye waxaan idin leeyahay lama horaan waa cos jilaalde waxaa weeye anigu xaggan waan siqeeyay haddana waan soo laabtay boqolkiiba boqol aad baad mahadsantihiin reer nairobi waxaa tihiin sharaf baa laydin hayaa dhan walba fanaaniinta iyo cid kastoo magac le markay imanayso aniga markii koowaad runtii aan magaaladeedii anoo maxay ahayday soo dhaweyn iyo aan arkayba hawlahan oo kale sabrays bay ugu noqotay aad baad mahadsantihiin karaamo iyo wanaag bay ii tahay aan meel ku qoranayo waxaan rajeynaya inaan wejiyadiin in badan oo nolosha ka mid aan arko aad baad mahadsantihiin anigu haddaan xasan gantaal xataa jidka kula kulmo waxaan dhahaa niyo xasan oo heesahaaga hal mid oo ka mid ah bal maanta waxaan codsanayaa qaaliluula qaaliluula waxaa inala joogo kamarada isna ka qabarsoonoo gabanaya waan kii sameeyey aad baan u salaamayaa bulshada soomaaliyed oo dhan heestaa jecel halkan baan iyadan ka xasuusinayaa yaa abid quweeyo xushmeeyo qadaariyo ku yidhaahda qaalanjiyo qowl dabacsan waaligeed qowl dabacsan waaligeed waa qaaliluule hay qalbigeeda yaadhaya way qiimo badantee wax loogu noqdaa iska yar kun yar baan u daawanaynaa aad iyo aad waa kale banguleed abwaanguuleed oo isaguna nin hadalku iga lahaa mararka qaar markaan dadkaan jeclahay weli waan kala maqnay waxaan soo dhaweynayaa kun iyo kow jeer aan soo dhaweynaynaa saaxiibkay garabkayga midig gacalkayga qof aanan waxba nolosha ku koobi karin oo waqti yar naga maqnaa dibna noogu soo noqday sidii loo wada sheegay kun iyo kow jeertani waa magaaladeennii waa meeshaan ku aababnay waa meeshaan ku garashaysanay waa meeshaan magaca ku qaadnay waa meeshay Soomaali gaar ahaan weliba saaxiib in badan inagu Nairobi joognaa kugu baratay kun iyo kow jeer ku soo noqo gurigeennii labaad dad intaan ogeyn meeshu sayidkii fariistay nimankaan ka imaadeen marka waa mahadsantihiin daawadayaal meel walba aad joogtaan si kastoo idiin soo gaara muuqaalkaygu inta ayaan kusoo koobnaa soo dhaweyntii qiimaha badnayd aan halkan kusoo dhaweynay joogada reer Nairobi xasan cabdi muuse xasan gantaal intaan ku kulmayna barnaamijkan waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo Soomaaliya nabad xasan mar walba soo dhawow aad mahadsantahay walaalka sharaf Allah